بسم الله الحمد لله إله mahad iskale walaalayaal meel walba joogtaan soo dhawaada waxaan ku guda jirnay cashirkii lixaad ayaan soo dhamaynay waxaan ka bilaabaynaa 1.5 oo ah structure of the nervous system oo ah cashirkeenii toddobaad insha allahu waxaan rabaa intaan cashirka gelin ka hor waxaa dadka inta ugu badan janaalka ku xiran soo codsanayaan inaan dardar gelino cashirada إن شاء الله وندردر قلنا وانا ددال بدنا كبحنا هويا كيمستري إن شاء الله عشر كهذا صدق طبعا أيو نجو إجيهاي إسلا أسبوعا إن شاء الله وحنبلن قادم كل ددال بقولك وبقول هدي له هيدمو مالنت أربع عدد نقص آدن هدي له هيدمو هذا عن عشر كدوة وثلاثة هبين كأربع عدد مالنت هذا أربع عدد إن شاء الله كل ددال دونا إن نسوقريو إلا chemical properties inaan geeyo haddii macaahida inta ugu badan hadda meelaha ay marayaan waa isomerismka macalinka ugu horeeya isomerismka meelaha soo maraya marka insha Allah haddii ilaahay ibn taasna meeshaasan insha Allah sidaasan samayn doona haddii ilaahay idmo qaabkaas ogeysiiskaasaan rabay chemistry marka caawa waxaan u duubay waxay tahay qodiisu biology-ga dad badan la socdo marka cadaalad in loo sameeyo waxay dadkii biology-ga la socdeen in casharadooda ay helaan dadkii chemistry la socdeen inay casharadooda helaan marka insha Allah biology-gan duubaynaa chemistry-gan insha Allah asigana casharada waan isla socodsiin doonaa biology waan horeynaa ma sha Allah chemistry-gan waxaan ku dadaalaynaa inaan dardar gelin ku socono macallimiinta aan la socon insha Allah halkaas aan ugu soo gudbaa ogeysiisaska aadka u muhiimka ah waayahay structure of the nervous system waxaan qaadanaynaa qaab dhismeedka dareenka guud uu leeyahay ayaan qaadanaynaa the nervous system consist of wuxuu ka kooban two major divisions laba qaybood oo waaweyn qaybta koowaad waxaa loo yaqaanaa central nervous system ayaa loo yaqaanaa central nervous system oo loo soo gaabay CNS midka labaadna waa peripheral nervous system ayaa loo yaqaanaa marka magacyada marka la fiirinayo horta su-aal isweydiidma waxay tahay shay in la qaybiyo maxaa sabab u ah shay in la qaybiyo waxaa sabab u ah si u fududaato barashadiis nervous system in la qaybiyo waxaa sabab u ah si u fududaato barashadiis marka la qaybinayo qaybintan tan waxaa lagu sareeyay qaabka jirka bini'aadamka uu samaysan yahay jirka bini'aadamka wuxuu leeyahay qayb dhaxa iyo qayb dhinacyo ah qaybta dhaxa dareenyaasha ku aadan waxaa loo yaqaanaa central nervous system qaybta dhinacyada dareenyaasha ku aadanna waxay u bixiyeen biologistayaasha peripheral nervous system oo peripheral means sides waa dhinacyada weeyaan haddii lagu dhaha marka way sababtaba CNS magacan lagu bixiyo central nervous because it locates the center of the body. Why peripheral kan loogu bixiyay? Because it locates the sides of the body. Hore aan soo sheegnay. Why bismillah the brain maskaxda and the spinal cord iyo xangulka make up waxay sameeyaan the central nervous system ay sameeyaan. The peripheral nervous system ka consist of wuxuu ka kooban yahay sensory neuron and motor neuron oo ka kooban labadaas ka kooban that kuwaas oo ka qaada information muxuu qaadaan peripheral nervous system ka laba ka kooban marka peripheral nervous system laba qayb loo qaybiyaa labada loo qayb waa sensory neuron iyo motor neuron waayo labadan relay neuron ku jiro miya kuma jiro relay neuron waayo loogu diro relay neuron because it located the center of the body the CNS wuxuu ku xadidan yahay CNS maskaxda ku xadidan yahay maadaama uu CNS ku xadidan yahay saadarteeda loo magacaabi waay ilaan waxa la rabaa peripheral iyo CNS kumid maaha marka dareenkaas wuxuu ku xadidan uu ka shaqeeyaa kaliya horena oo soo sheegnay oo kaliya uu ka shaqeeyaa CNS maadaama uu ka shaqeeyo CNS kaliya saadarteeda loogu dari waay peripheral nervous marka wuxuu ka kooban laba qaybood oo sensory neuron iyo motor neuron ayuu ka kooban yahay zaad waa kuwa ka qaada information akhbaar ay qaadaan hay'atu waa max akhbaar ay qaadaan ana form waxay sameeyaan CNS ka ayna sameeyaan respective waa max sida iskool horeeyaan respective marka la maxaa loo jeedaa warkan xogaan dul istaaga waxaa lahaa respective markuu dhahaa wuxuu ula jeedaa sensory neuron and motor neuron are interdependent way isku tiirsayin maxaa ula jeedaa warkaas waxaa ula jeedaa sensory neuron iyadoo uusan shaqeynin motor ma shaqeyn karo waayo goorma motor shaqeeyaa fariinta uu sensor soo qaaday oo la soo tarjumay kadib motor shaqeeyaa haddii fariin aysan ba imaanin oo fariin ba aan la soo tarjumin goorma motor shaqeynaya marka saadarteeda marka respective marka ku dhaca waxa sensory in uu shaqeeyaa horeyso kadibna motor inuu shaqeeyaa ku xigto waa macnaheedu
waa ka soconaynaa sawirka hadsa ujeedaan waa kana sawirkan kan ah central nervous system waa ka brain spinal cord xangush wata maskaxdi qayb spinal cord marka waxa loo yaqaan xangul maxaa loo yaqaan waa is the posterior extension waa qaybta dambe from the brain to the tail taasoo ka bilaabay maskaxda oo jeeda ilaa intay tagaysaa to the tail qaybtaas oo marka kaas waxa loo yaqaan spinal cord xangul ama alxablu shawki loo yaqaan peripheral kan waa ka high graphics kan hadaan fir nervous system guud ahaan maxaa loo kala qaadaa laba qaybood oo kala ah nervous system iyo nervous system laba qayb loo kala qaado central nervous system iyo peripheral nervous system central kuma qalo qayb brain iyo spinal cord brain oo maskax spinal cord xangulka peripheral kuma qalo qayb sensor diffusion iyo motor diffusion high motor kuma qalo qayb marka autonomic nervous involuntary qaybta aan la maamulin autonomic maxaa qaybta dareen wadayaasha aan la maamulin iyo soo kale iyo somatic nervous system oo loo voluntary oo ah qaybta la maamulo waa involuntary waa maxay aan la maamulin voluntary waa maxay la maamulo waa kana fiir marka maxaa loo sii kala qaada marka sympathetic iyo parasympathetic sympathetic macnaheedu maxaa waa activity shaqooyinka zaadkaas increase the energy tamarta consumption qof qaadana oo maxaa loo jeedaa warkaas sympathetic waxa macnaheedu Soomaali oo kooban hadii aan idin sheego waxa loo yaqaanaa sympathetic macnaheedu fahankeeda oo kooban hadii aan idin soo koobo waxa fahankeeda sympathetic waxa qaadashada qofka marka uu ku jiro xaalad aan caadi ahayn marka uu ku jiro maxaa u jeeda xaalad qeyrul caadi ah oo xaalad qeyrul caadi maxay noqon kartaa xaalad qeyrul caadi waxay noqon kartaa qofka tusaale markuu xanuunsan yahay oo kale markuu xanuunsan yahay oo kale marka tusaale banooni oo kale soo ciyaartay dhidid zaa'ida ka baxaayo adiga dhan waa hirahiraysa xaalad aan qeyrul caadi ahayn ku jirto oo aan normal ahayn ayaa ku jirta xaaladaas oo kale qof marka uu ku jiro waxa loo yaqaanaa sympathetic loo yaqaanaa parasympathetic waxa xaalad uu qofku caadi u yahay meelna aysan xanuunaynin dhididna uusan ka imaanayn wax xanuun uusan haynin loo yaqaan waa kana iyadana marka waxa loo yaqaanaa iyadana waa activity saamax shaqooyinka zaadkaasoo gain uu helo activity saamax shaqooyinka zaadkaasoo gain uu helo ana conserve uu ku kaysa energy tamarta loo yaqaan marka labaas xaala loo kala qaado sympathetic waa shaqooyinka jirkiisa ka dhacaya siyaada siyaadadaas ay siyaadeen waxay sabab u noqonayaan energy consumption inuu qaato tamar waa uu tamar u qaadanayo su'aal muhiim ah qodheedu aan isweydiinayno tamar wuxuu u qaatay sababta weyn uu tamar u qaadanayo waxay tahay qofka inuu tamar qaato waxa ugu wacan waxay tahay damarta uu macnaha jirkiisa ku kaysanayo qaadan waxa ugu wacan xaaladaas uu ku jiro waxa loo baahnaa marka sokor badan iyo tamar badan jirkiisa uu qaado antow ka qaadan tamarta u kaysneed oo kale koojiinka jirkiisa ku jirtay ayuu qaadanaya taasoo qaadanaya marka tan waa maxay activity shaqooyinka jirkiisa ka dhaca daad waqtigaasi waxay helayaan oo normalku uu qofku u yahay gain waxay helayaan wax bay helayaan tabar bay helayaan ana conserve energy oo kale tamartan way sii kaysanaan xaaladaas uu caadi u yahayna tamaray qaadanayaan tamartii ku oo lahayna way sii kaysanayaan 1.6 the central nervous system consists of the brain maskax and spinal cord iyo xangul ku kooban the brain and spinal cord sida figure aan ku arki doono leeyahay these one essential structures waa qaab dhismeed muhiim ah are both labadaba well protected waxay si fiican u difaacaan oo brain spinal cord kuwaya wax laga hadlooyo are both labadaba well protected si fiican u difaacaan from damage waxyeelada ayna ka ilaaliyaan an injury iyo dhaawac ay ka ilaaliyaan the brain maskaxda is enclosed with maxay waxa ku wareegsan oo ku xiran skull lafta adag ayaa ku xiran loo yaqaan skull and the spinal cord xangulkana by the vertebra and the spinal cord xangulkana by waa mid by macnaha waxa sameeyay xangulku waxa sameeyay by vertebra by waxa laga sameeyay vertebra laf dhabarta ayaa laga sameeyay daataasoo form sameysay spinal column markay u sameystaa waa maxay qaab wareeg spinal waa maxay qaab spinal marka waxa loo yaqaanaa qaab macnaha wareeg ay u sameystaa spinalka oo xangushi xangul wareeg u sameystaa macnaha column wareeg membranous conference waa maxay xubabka ku daboolan
noun as xubabka maskaxda ku dabolan waxaa loo yaqaanaa meninges loo yaqaanaa meninges waa maxay meninges waxaa waaye xubabka wax daafacay maskaxda loo yaqaanaa meninges saddex xub waana haddaan arki doonaa that waa kuwa marka provide maxay siiyaan maskaxda further protection daafac dheeraad ay siiyaan the brain maskaxda the spinal cord iyo xangushaba are iyaga completely gebi ahaanba surrounded by waxaa ku wareegsan 3 layer saddex lakab of tissue oo nudayaal ayaa ku wareegsan waxaa ku wareegsan maskaxda guud ahaan marka laga hadlaayo 3 layer saddex lakab ayaa ku wareegsan of tissue oo nudayaal the meninges waa maxay xubabka wax daafaca named waa la magacaabay from marka la magacaabay magacadooda outside midka ugu sareeya laga soo bilaabayaa in words iyadoo hoos soo soconayo they are waxayna kala yihiin diura matter arachnoid matter iyo bia matter ay kala yihiin oo leeyahay marka waxay kala yihiin saddexdaas qaybood oo kala arachnoid matter diura matter iyo arachnoid matter iyo bia matter saddexdaas qaybood kala yihiin naming waa la magacaabay saddexda xub from iyadoo laga soo bilaabo xubka ugu sareeya iyadoo lagu tagaa xubka ugu hooseeya waana kana hadda fiiri xubabka maskaxda daafac iskaal u dhahay diura matter arachnoid bia matter meeshan waxyar haddaan dul istaagno walaalayaal xubabka maskaxda daafaca saddexdan waay oo diura matter iyo arachnoid layer iyo bia matter ama arachnoid matter waa dhigi kartaa macnahooda marka shanta hadda buug wuxuu qorayaa shantan waxyar haddii aan sharaxno meeshaan aan dul istaagno waxyar meeshaan haddaan sharaxno walaalayaal sidaanay noqonayaan waaya bismillah walaalayaal marka aan ka hadlayno maskaxda marka laga hadlayo 7 dhufays ay leedahay maskaxda aadanaha 7daas dhufays ay leedahay waxaa ugu horeeya buug wuxuu sheegaa qaybo yar oo ka soo qaadanaya 7daas ayuu sheegayaa 7daas marka waxaa waay walaalayaal 7 dhufays ay leedahay marka maskaxda walaalayaal markaan sida caadi ugu hadlayno waxaa kow ka higher oo tinti skin oo maqaarka skull oo lafta madax ilaaliso adag diura matter arachnoid layer ama arachnoid matter waa dhigi kartaa isku mid cerebrospinal fluid dareeraha loo yaqaanay bia matter walaalayaal maskax marka aan ka hadlayno 7daas daafac ayaa maskaxda guud ahaan ilaaliso sida caadi markaan u hadlayno kow maskaxda inay wax ku dhacaan haddii ay jiraan maskax ay wax ku dhacayaan kow waxay wax ku dhacayaan tintaas higher tinta qudheedu wax la dhayalsan kar maaha waayo qofka tin la'aanta ay qofka tinta leh isku mid maaha qof basayuulka ay qof kale isku mid maaha waaye marka kow tintaasi ku dhacaan laba maqaarka u gudbayaan saddex waxay u gudbayaan iskaalka checkpointii saddexaad loo gudbaa iskaalka oo lafta adag lambarka afraad oo kale diura matter maxaa raada marka diura matter waxaa raada terminology waqtiga la bixiyay maxamed siyaad barre la bixi waxaa waa hooyo qallafsan diura matter hooyo qallafsan maxaa loo dhahay mataqaanaa waxaa loo dhahay waxay tahay hooyo waxay u tahay maskaxdi oo u naxariis badan tahay oo ilaalini qallafsan marka lahayna wixii dibadda ka imaaday ku adag tahay ilaalisaa waa macnaheedu saasay ka dhigantaa marka hooyo qallafsan arachnoid layer ama arachnoid matter waxaa leenahay iidan xuub caara sababta loo maxaa waan arki doonaa buuggeena aan ka arki doonaa cusub xuub caar waxaa loo dhahay wuxuu ogyahay qaabka xuubka caarada camal u ogyahay waaye sidoo kale cerebrospinal fluid waxaa kaloo maskaxda daafaca waxay tahay dareeraha loo yaqaano cerebrospinal fluid ayaa difaaca waa dareero very important sidoo kale maskaxda waxyaabaha daafaca waxaa ka mid bia matter waxaa loo yaqaanaa dareeraha asaga dareere aan dhihine bia matter waxaa loo yaqaanaa hooyo naxariisley maxaa loo dhahay waa marada maskaxda lagu haya canuga yariiska maadaama marka uu dhashta lagu qabta ay tahay wax kow oo lagu qabta naxariista kuwaad loo sameynayo lagu qabanayo maxay tahay maradii maskaxda ilaalinaysa maadaama ay tahay bia matter waxaa le hooyo naxariisley hooyadii naxariista badneed oo maskaxda haysay iyadoo waana bia matter haddii la gaaro maskaxda waa la gaaray waayo bia matter meel kale oo u dhiman malaha haddii shaygaas uu gaara marka 7daasi daafac ayaa kooda hore ka horeysa in la ogaado 7 daafac oo very important waaye oo aadna ugu qayb qaadanaya waa 7daasi daafac marka buug qayb kamid soo qaatay 7daas daafac waa marka
dareerahan kan asina aragno layer waa arki doonaa dareeraha loo yaqaan cerebrospinal fluid waan arki doonaa sababtu meeshaas u ka yimaado magacaas waan caday doonaa todobadaas daafac ayaa marka waajib maskax marka laga hadlayo sida caadiga guud ahaan looga hadlayo in la ogaado ayaa waajib marka qataasaan rabay inaan idiga sheekeeyo sharaxo waaye marka waa sawirkan buugu kan dhiyur maatan maxaa raada hal mar aan dulmarno dhiyur maatan waxaa raada is the tough outer membrane waa xuub koro oo adag waa xuubka ugu koreeya waaye waa dhiyur maatan waa is the tough outer membrane waa xuub adag oo koreeya kaasoo covering ku daboolan the brain maskaxda ayuu ku daboolan yahay and the spinal cord iyo xangulka of vertebrates laf dhabarta dhiyur matter weeyaan is composed of waxay ka samaysan tahay connective tissue nudayaal wax isku xiray ka samaysan tahay and reed waxaana ka buuxa a network koox of capillaries ee teeftaafya ayaa ka buuxa marka laga hadlayo taasaa loo yaqaana waaye the pia matter is the innermost membrane mujeda waa xuubka ugu hooseeya innermost membrane kaasoo covering ku daboolan the brain maskaxda and the spinal cord iyo xangulka asiga possesses wuxuu leeyahay many blood capillaries waa maxay teeftaafyo badan oo dhiigga qaada ayuu leeyahay and lymph vessels iyo xididada dhacaanka qaada ayuu leeyahay biyo maata marka waxaa loo yaqaanaa xuubka ugu hooseeya kaasoo ku daboolan maskaxda iyo spinal cord ku daboolan weliba maskaxda qayb cerebrum-ka ayuu aad u sii ilaaliyaa oo meesha ugu muhiimsan iyada oo biyo matter possesses waxay leedahay many blood capillaries waa maxay capillaries teeftaafyo badan oo dhiigay leedahay and lymph vessels iyo soo kale xididada dhacaanka qaada ay leedahay midda kale saddexaad arachnoid matter ama arachnoid layer oo isku mid is a layer waa lakab of fibrous tissue nudo macnaha nudo dumeed ka samaysan ama nudo dareemeed ka samaysan nudo dareemeed ama nudo dun dareen wata ka samaysan ayaa leenahay is a layer waa lakab of leh fibrous tissue nudo dun dareen wadata ka samaysan waaye daadkaasoo lies dhacantuu dhaca marka arachnoid layer wuxuu dhacaa bidiyo intu dhexaysa dhiyura ana biya matter u dhexeeya macnaha xuub caaraha u dhexeeya dhiyura matter iyo biya matter u dhexeeya this is kan a narrow space waa meel aad iyo aad ciriiri oo isku dhow waay bidiyo waxay u dhexaysaa dhiyura matter iyo biya matter ay u dhexaysaa this is kan there is waxaa jira narrow marka intaas marka laga soo arachnoid matter ku tilmaamo waa xuub uu leeyahay kaasoo u dhexeeya dhiyura matter iyo biya matter kaasa loo yaqaanaa waana xuub wata dun dareen ka samaysan wata waay there is waxaa jira marka intaas kadib markaan kasoo gudubno war kale waa meeshaan there is si fiican iska fiiri there is waxaa jira a narrow space meel aad iyo aad isku dhow oo bannaan ayaa jirto oo bidiyo u dhexayso dhiyura and biya matter u dhexaysa ayaa jirta waxaa jirta uu leeyahay meel aad iyo aad isku dhow oo u dhexayso dhiyura iyo biya matter u dhexaysa ayaa jirta meeshaas marka maxaa meeshaasi is iyada fluid waxaa ka buuxa dareeraha loo yaqaano cerebrospinal fluid dareeraha loo yaqaan ayaa ka buuxa leeyahay fromuudkaasoo muxuu qabtaa marka dareerahan kan shaqo nuucoo qabtaa waaye dareeraha marka from waa midka oxygeenta xaggeeda ka timaado oxygeenta maskaxda ay qaadato oo ay ugu badan qaadato waa midka xaggiisa ay ka imaato nutrients waa maxay waxyaabaha nafaqooyinkana diffuse into wuxuu usoo gudbiyaa brain cells waa maxay unugyada maskaxda ay usoo gudbiyaa ana protective wuuna difaacaa the brain maskaxda and the spinal cord iyo xangulka ayuu difaacaa waa ka marka there is waxaa jira narrow space meel aad iyo aad iska dhow ayaa jirta oo biduun dhexeys dhiyur matter iyo biya matter is iyada fluid waxaa ka buuxa cerebrospinal fluid ayaa ka buuxa fromuudkaas oxygeenta xaggiisa ay ka timaado anadranti shaqada u qabto waxaa oxygeenta maskaxda ay qaadato xaggiisa ay kasoo gashaa shaqada labaad u qabto waxaa anadrantis nafaqooyinkana diffuse soo galaan intu waa maxay gudihiisa soo galaan into brain cells nudayaasha maskaxda soo galaan protect wayna difaacaan the brain maskaxda spinal cord iyo xangulka difaacaan marka dareerahan waa dareero aad u muhiim maskaxdan wax badan ka caawi weeyaan waana dareera haddii la waayo maskaxda aysan bashaqay karin istaraktaradaasi waaweyn u jeedid waana dareera aad iyo aad u muhiim dareerahan wuxuu ka yimaada walaalayaal haddaan idin caddeeyo laba erey oo kale cerebro iyo spinal ayuu ka yimaaday wuxuu ka yimaaday laba erey oo kale cerebro oo u taagan cerebrum maskaxda qaybteeda cerebrumka u taaganta cerebro
spinal waxaa waaye waa xangulka waaba taqaaniin batan labadaas erey ka yimaada waayo labadan erey loogu magac daray cerebral oo qayb maskaxda cerebral-ka spinal magaciis maxaa dareeraha marka maxay noqonaysaa dareeraha laga heli kara amaba ka buuxa maskaxda qaybteeda spinal cord-ka oo xangulka ah iyo cerebrum-ka ku dhex jiro saas waa macnaheedu waayo maxaa loogu magac daray labadan magac haddii aan caddeeyo waxaa loogu magac daray uu ka buuxaa labada meel uu si fiican ugu buux maadaama ay yihiin labada meel saa darteeda loogu magac darayaa leenaha cerebral spinal fluid kelimada marka cerebral spinal fluid marka la waa qaabkaas cerebral u taagan cerebrum-ka spinal u taagan xangulka u taagan waa meeshaasayna ka yimaadeen maadaama uu labadaas position uu aada ugu buuxa saa darteeda loogu magac daray halkaas aynu insha allah geynaynaa intaan hal mar ka bixin su-aashan hal mar ila fiiriya how sideebaa dhaas cerebral spinal fluidka protective difaacada brain maskaxda and spinal cord shaqadii hadda uu qabanayo ayaad sheegaysaa waaye oxygeenta xaggiisa maskaxda ay qaad way kasoo gashaa sidoo kale nafaqada wuxuu siiyaa nudayaasha maskaxda sidoo kale su-aasha labaad mention xus other protections waxyaabo kale oo difaac for the brain maskaxda spinal cord iyo xangulka maxaa ka mid waxyaabahaas hayarka iyo skinka ku dar 5 asaa kuu sheegay 2 anaa kugu dar soo ma hayar iyo skinka ka mid ah halkaas ay inoo joogto billahi tawfiiq